qaxootiga Yemeniyiinta ee ka soo hayaamay colaadaha weli ka taagan wadankaasi Yemen isla markaana saldhigtay safaaradda Yemen ay ku leedahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa maanta la gaarsiiyay deeq raashin oo gargaar ah oo ka timid hay'adaha Turkiga fadhigeedu yahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaana deeqdaani ku wareejiyay qaxootigaasi Yemeniyiinta gudoomiyaha gobolka Banaadir Yusuf Xuseen Jimcaale oo warbaahinta kula hadlay safaaradda Yemen ay ku leedahay Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin qaxootiyiintaasi Yemeniyiinta ayaa waxa uu sheegay in deeqdaani ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan walaalahooda Yemeniyiinta isla markaana ku dacdareysan caasimadda Soomaaliya Muqdisho wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay caawiyaan walaalahooda maanta runtii aan soo gaarnay safaaradda Yemen ay degan yihiin dad laajiin ah walaalahayna Yemen ah oo dagaaladii sokeeyay ee ka dhacay waddanka Yemen ka soo baxay qaar ka mid ah ee degan safaaradda gudaheeda ayaa waxaan soo gaarsiinay mucaawanadii walaalaha Turkiga ay nagu caawiyaan oo shacabka Soomaaliyeed ay ku deeqeen ayaan wax soo gaarsiinay maadaama dadka qaxootiga ay dadka masaakiinta dadka barakacayaasha dalkan degan gobolka Banaadir uu mas'uul ka yahay taas ayaguna qayb ay ka yihiin walaalahayna runtii Yemeniyiinta aan ogsoonahay markii aan qaxnay aan Yemen tagnay sida noogu soo dhaweeyay shacabkeena Soomaaliyeed soo dhaweeyay anaguna sidaas ka mid ah ayaan naga rabaa mas'uuliyad ayaan saaran marka mucaawarada yarta ee kooban aan qaybinaynay ayaan qayb ka soo gaarsiinay sidoo kale safiirka Yemen u fadhiya Soomaaliya oo isna ka gudoomiyay deeqdaasi raashinka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka mahad celiyay isla markaana waxa uu tilmaamay in mahad ballaaran ay u jeedinayaan hay'adaha Turkiga ee deeqdaasi soo gaarsiiyay السفارة اليمنية نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي محافظ مقديشو السيد يوسف حسين جمعالي ومرافقيه كما نشكر البلدية مقديشو على تقديمها 120 كيس سكر كل كيس يحتوي على 50 كيلو و120 كيس دقيق كل كيس maalmihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya waxay ka waday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya deeq raashin oo ay u qaybinaysay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan magaalada waxayna wasaaraddu ay sheegtay inay sii wadi doonto howlahan gargaar ay ka wado magaalada Muqdisho kadib deeq raashin uga timid wadanka Turkiga Abdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari Somali News TV Muqdisho.